marka hore aan tixgelin kow annaga waxaan nahay dal hadda wax kasta oo kale muddo 30 sano ka badan aysan shaqayn aan ka ahayn nidaamka qabiilka qofka runta loo baahan in laga hadlo oo laga sheego sida wax u jiraan meritocracy ama qofba qofka uu ka mudan yahay aqoon ahaan iyo khibrad ahaan meel ay ka shaqaynayso ma ahayn Soomaaliya meel qabiilka uu ka shaqaynayo ahayd inkastoo aanan premiska ama su-aasha meesha laga bilaabay aanan la ogolayn walaalkay Range oo ah in madaxweynuhu dadka qabiilkiisa ah uu soo qoro haddana waxaan uga jawaabayaa su-aashii inaan ogahay perceptionka ama waxa laga qabo arrinkaas marar badan safaaradaheena hadda runtii waxay ku dhisan yihiin ama lagu joogaa qaab qabiiladu isu dheelitiran yihiin intii wax la isu dheelitiri karo marna perfect ma ahaanayso laakiin maadaama aan nahay society ku caanamaashay qabiil in wax lagu helo qabiilka kaliya wax ku raadisa qabiilkaas pressurekiisuu leeyahay mana ahan madaxweyne kaliya waa qof kasta oo mas-uul ah xildhibaan ha ahaado wasiir ha ahaado cid kale ha ahaato wax walba waxaa la rabaa qabiil in lagu qaybiyo haddaan qabiil wax ku qaybinno oo aanan aqoon iyo khibrad iyo soomaalinimo aanan fiirin sidee rabnaa dhibka aan ku jirno inaan uga baxno waa su-aal u taala societygeena oo dhan inaan sidaa uga gudbi lahayn aan ka shaqayno ma ahan su-aal markaas imaan karta haddii societygu ay saxsan tahay ay tahay mid ka gudubsan arrintaas ay samayn lahaayeen mas-uuliyiinta ama mas-uuliyiinta ay markaas u ekaan lahaayeen dad ka baxsan qaabka maaragtay societyga dhaqankeeda uu yahay mas-uuliyiinta Soomaalida in badan way isxakameeyaan qaarkoodna societyga siduu u yaalay ay maaragtay ay u dhaqmaan marka ranka aan ku saxo ma ahan in mas-uuliyiinta maaragtay madaxweynaha oo kale uu runtii yahay qof hadda qabiilkiisa safiirada u badiyey waa la isku dhex jiraa wasaarad ahaan waxaa noo yaala sharci la yidhaahdo foreign service law ama sharciga maxaan ku rahdaa shaqada arrimaha dibadda sharcigaas wuxuu qabaa madaxweynuhu inuu soo magacaabi karo wax ka yar 10% oo ah heerka siyaasadda heerka safiirada intii aan wasaaradda imid waxaan xoogga saarnay in inta kale shaqaalaha aan ka promote garayno ama ka dalacsiino wasaaradda gudaheeda su-aasha waxaa ma noo suurtooday juuriga arrintaas waa ku maqan yahay laakiin waxaan ku kalsoonahay waxa ay noo gooyaan aniga ahaan waxaan qabaa in wax badan ay maaragta arrintaas nooga suurta gashay taas horta waa tan arrintan ku saabsan safaaradaha waxaa tiraahday ma ahan meelo maaragtay shaqo si fiican uga socoto kulleyba waxay ku xiran tahay safaaradda aad ka hadlaysid iyo waddanka anigu difaac kama galayo in meel aan shaqaynin aan idhaahdo waa ay shaqaysaa dadkana waa loogu khidmayaa waan rabnaa inaan ogaano xaqiiqada jirta haddii wax specifica jiraan fadlan nala socodsii
eedayn guud iyayna noqonin maaragtaa meelaha qaarkood jaaridaha ku badan shaqada aad ugu badan waxay helaan safaaraduhu maaragtay lacag ka soo gasha khidmooyinka ay qabtaan oo ay awoodaan inay isaga bixiyaan kharashaadka budgetkeenna ma ahan mid runtii kaafinaya baahiyaha ay qabaan safaaradaha meelaha qaarkoodna shaqo badan oo waxaa taalla kale laakiin meel jaaliyado badan joogaan ma aha sidaas daraaddeed safaaradaha sooma galaan kharashaad ay maaragtay ku bixiyaan lacagaha looga baahan yahay inay baxshaan marka laislama wada barbar dhigi karo safaaradaha qaarkood waa hanti soomaaliyeed iyo guryo dowladdii hore ee soomaaliya ay iibisay oo aan leenahay meelaha qaarkoodna kiraa loogu jiraa meelaha qaarkood dalalkanna hoostgareeya oo na siiyey oo aanan laga qaadin qarash meelaha qaarkood dowladaha aan la joogno ayaa kaaba dhaqaalaha marka kulli hal burash lama wada marin karo safaaradaha sida aan dadka joogana hal burash loo wada marin karin bini'aadanka qaar ma aragtay sacrifices badan sameeyaa jira gaar ahaan shaqaalaha diblomaasiyiinta ah ee ka shaqeeya safaaradahan marxalado waxay ku shaqeeyaan runtii aad u dhib badan intooda badan anigu intaas oo maaragtay detaila markii hore kama ogeyn laakiin maanta runtii ixtiraam aad u weyn baan u hayaa diblomaasiyiinta soomaaliyeed oo habeen iyo maalin u taagan qaarkood kharashkooda ayagu iska bixiyaan qaarkood ganacsiyo ay lahaayeen ku baxshaan qaarkood si kale isu dabaraan marka runtii waxay naga mudan yihiin sidaan furitaankiiba ku sheegay ammaan dadkaas ayaga doctore su-aasha ku saabsan sidee safaaradahan jooga soomaaliya u shaqeeyaan adduunka oo dhan uu ku cusub yahay arrinkan social media oo maaragtaa qof kastaba facebook wuxuu rabo soo dhigi karo wuxuu rabo tweet gareyn karo ma ahayn qaab ka mid ah qaabka protocolska ama waxyaabaha sida loo maro maaragtay diblomasinimada adduunka kama jirin tweetskan iyo waxaan 30 sano ka hor waa wax nagu cusub waaye dhammaanteen laakiin annaga laftirkeenna inkastoo waxyaalahan aad noo dhibayaan aan ogaano oo ogolaano xaqiiqada inaan nahay dal budgetkiisa la kabo amnigiisa wax lagala qabto dadkiisa markii abaaro u yimaadaan ama markii fatahaado ku yimaadaan loo soo gurmado dad keligood hadda wax walba aan samaysan karin imagine haddaan maanta annaga wax walba haysano safaaradahan iyo qaabkan ula macaamiltano sidaan runtii waa ka duwanaan lahayd ayagana marka horeba ixtiraam noo hayn lahaayeen ka badan intaan laakiin inaan dal saas ah nahay haddana aan rabno in nalagu ixtiraamo runtii waa wax annaga laftirkeena loo baahan yahay inaan muraayad isku fiirino oo oon aragno si kastaba ha ahaato weli waxaan matalaynaa aan ka shaqaynaynaa isu ekeysiinaynaa marar badan inaanaan marna qaadan karin waana naga dhab hadda tweetku ugu dambeeyey markaan arkay qaarkood anigan si public ah waa ugu jawaabi karay tweetkaas laakiin waxaan kala doortay in aan private message u diro oo private message aan isdhaafsano iyo in aan tweet ku jawaabo
kee productive noo ah annaga qaarkiin waa og yihiin aniga inaan maaragtay kala gaban safiirada iyo diblomaasiyiinta aan dareemo inay nagu xadgudbaan oo si public ah aan maaragtay isla meeshaas ugu jawaabo oo ka hadalno wata ixtiraam iyadoo ay jirto oon laga baxaynin maaragtay sharafka iyo maaragtay u baahan tahay diblomaasiyadda tweetskaas intii aan tweet garayn lahaa arrimahaas waxaan door biday inaan private message diro oon idhaahdo waxa aad tweet garaysay naguma habboona xaqiiqada sidaasay u jirtaa taasaa adiga kuu bannaan tanay tahay taasoo keentay jawaabtii annaga aan ka rabnay marka tweetska waa la arkaa laakiin shaqo badanoo hoosta ka socoto runtii lama arko sidaa ula yaaban tahay ayay annagoo dhan noogu wada cusub tahay tweetka kama qayb ahayn maaragta qaabka ay maaragta diblomaasiyiinta feedback u siiyaan diblomaasi kasta oo wax tweet garayana lama ceerin karo runtii su-aashaada iyo tan abshir axmed waa isu dhow yihiin maadaama safiiradda laftirkeeda ay samaysay wax aanan ku habbooneyn oo annaga aanan raalli ka ahayn laakiin waxaa ogaataan wax walba oo aa aragtaan marar badan inkastoo political annaga noo ficnaan lahayd si aan taageero badan ugu sii halno inaan dharbaaxo ku gedino annagana marar badan waa isxakamaynaynaa waxaanan kaga jawaabaynaa si rasmi ah si hoose mararka qaarkood safiirada in loo waco la saman gareeyo marar badan maaragtay way jirtaa laakiin mar walbaba ma ahan mid aan si publicly ah aan uga jawaabno waa ogtihiin inay jireen tan iyo dowladdan intay timid ilaa 2-3 safiir ama maaragtay madax sare oo UN-ka ah in la siiyey persona non grata ama waddanka laga saaray waa meesha ugu dambaysa waaye oo la gaari karo haddiiba taas aan samaynay ku kalsoonaada inay jiraan tallaabooyin kale oo badan oo sixitaan ahna oo hoosta ka qabannay taas waa mid waxaa kaloo iyadana nagu wada cusub oo aan arkay twitterka safiirada qaarkoodna ii sheegeen in markay wax tweet garayaan sida soomaalida activeka u tahay oo intaas oo 100 oo qof ay tweetkii uga soo wada jawaabayaan runtii wax badan oo waxaa jira dee luqadda u baahan in maaragtay aan constructive ahayn laakiin qof walbaba wuxuu cabirayaa dee aqoontiisa iyo caqligiisa iyo meesha uu joogo waxa dhibaya inuu garana marka ayaga laftirkooda dhibkooda waa qabaan hadday wax tweet gareeyaan waxaa jooga soomaali badanoo ayagana fikirkooda baxsanaysa maadaama wixii public yihiin hadday ahaan lahayd waraaq xafiiska ugu imaanaysa ama booqasho uu safiirku ugu imaanayo xafiiskaaga arrimo ka wada hadashaan sixitaan u baahan wada xaajood u baahan meesheeda ahaan lahayd taas weli meesha kama baxsana laakiin tweetskan iyo waxyaalahan social media banaanka laskaga tuuriyeenayo runtii adduunka oo dhan ay ku cusub tahay sida ay hadda wax u jiraanna uma malaynayo inay cidna ka qarsoon tahay sida idinku ugu jeedaana loogu wada jeedaa waa mahadsan tihiin halkaasaan kaga baxayaa mar kale dhammaan idinka qabanqaabiyaasha iyo dhegeystayaashaba waa idin mahadcelinaya mahadsanta aad iyo aad umahadsantahay Saaxiib Tafsiir waxaan sidoo kale samayn doonaa su'aalaha inta panelka saarana kusoo goyn doonaa waxaa jirta cilad xagga farsamada ah oo wasiirka haysato dhinaca khadka marka dabcan inta panelka saaran kadib aan su'aalaha siinayna haddii ala yidhaahdo waxaan markaan siinayaa ma joogtaa wariye maxamed bakeel exactly maxamed bakeel cabdi hal mar isku wada xiji si wasiirkan waqti ugu safe gareen samater waa mahadsan tahay
maxamed bakeele farxa awkombe ruqiya iyo cabdixakiim waa 4 qof no 5 qof actually waxaan isku daynaa markii inay su-aalahooda soo gaagaabiyaan min 10 second ama 15 second ka dhigaan si wasiirkan waqti ugu safe gareyno aan magaranaysa easy oga dhigno inuu su-aalaha magaranaysa uu xasuusto ama uu notes fiican u qaato marka waxaan ku bilaabayaa cabdixakiin waxaa ku xiga maxamed bakeele waxaa ku xigto farxa saas ku socda cabdixakiin go ahead please السلام عليكم دمت وين سلامي أصحاب وسير محمد عبد الساق وسير محمد عبد الساق نسجوني أنا سلام يا وسيرك وحن ربع إنا ويديو وسيرو حتى هذا كاي ودقي سنة واحد شريت واحد هذا دقالة لقوا بحياة صوماليا وارون صوماليا دقالة لقوا بحياة ودقالها صوماليا لقوا بحياة ما كان international community لقوا بحياة ودقالة إسكاف دوبا دينا ساي يدين ساس ويا bay arrinkooda u badan tahay marka waxaan rabaa ilaa goorma baan anagu dhaqaalaha nimanka reer galbeedka ay afduubka noogu haystaan aan kusii jiri karnaa midda kale ma laga yaabaa inaad darrag iska dhigtaan Soomaaliya haddii aad nimanka ka farmaroojin kartaan meel kale afka u saartaan haddii laga waayo ayaga jid iyo jiho sababtoo ah siyaasadda ay nagula dhaqmayaan waa siyaasad waxa weeye mar walbaba laba wajiilaynayo oo inay Soomaaliya saxadda aysan ka soo kicin ay doonayaan su-aashaydu waa taa wasiir thank you cabdixakiin maxamed bakeele mana maqashaa walaal suud aad baad u mahadsan tahay anigoo soo koobaya waxaan doonayaa wasiirka aad baan u salaamayaa ugu horreyn waxaan doonayaa inaan weydiiyo su-aal kooban oo ah sacaadatul wasiir xukuumaddii ra-iisul wasaare khayre oo kale waxaa jirtay dadaallo wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumaddu iska kaashanayaan oo dunida ay Soomaaliya ka soo qaadanayso dadka kaga xidhan xabsiyada iyadoo ka daba tegaysa kiisaska loo haysto si dhowna ula socoto istiidooyinka dadkaasi ku sugan yihiin arrimahaas oo wasiir hal abuurkooda lahaa ra-iisul wasaarihii hore halkay ku dambeeyeen miyaa la ilaaway kasii shaqayntooda mase hal abuurkaasi wuxuu noqday rajo la xijaabatay ra-iisul wasaarihiis casilay waa mahadsan tahay mahadsanid maxamed bakeele walaal farxa ku soco su-aashaada adigoo soo gaabinayo farxa ku soco walaashan mahadsanid suud salaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu madasha dowlad nool waa salaamaya iyo wasiir maxamed cabdirasaaq anigu maanta sharaf bay tahay wasiir inaan kula hadlo anigu waxaan ahay dhal diblomaasi aabahey waxa uu ahaa wasiiro allah wada naxariiste cumar cabdiqaalib iyo cabdiraxmaan jaamac bare arrinkaad ka hadashay oo taabatayna conditionskii ku nool yihiin dadka safaaradaha jooga waa dhab anaa xasuusta caruurnimadeena iyadoo korontada iyo biyaha iyo waxyaabo badanna laga goosto oo aysan xaalado adag lagu nool yahay oo dadka siday moodayeen aysan ahayn su-aasheeda waxay tahay arrimahan haddeertaanayta oo Joe Biden dib u soo nooleeyay oo ah executive orderka iyo Anthony Blinken uu leeyahay visa restrictions and restrictions baan saaraynaa madaxda Soomaaliyeed saameyn intee la eg bay runtii nagu leedahay maxayse ka kooban tahay maxayna noo geysan kartaa waadna ku mahadsan tahay aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay walaal farxa su-aasha iyo maraykanka iyo Joe Biden administrationka cusub waxay ka damacsan yihiin iyo adduunka dhinay cunuqabateen ugu hanjabaan marka Soomaaliya isna different case Soomaaliya wasiirka uu iman doono waxaan ku xijinayaa Awkombe iyo Ruqiya qofkii mic qaadan kara please Awkombe iyo Ruqiya Awkombe ku socdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوديو صاحب العمر سمتريو ومع السنتين وزيركنا وما يعلنا وقتي سيء خبرت ديسا وزيركا وحان ودين لها وزير أرضيدا سوماليا دالك السودان كنول وحا لو سمي شرع قارة دولة السوساتي السودان واه إنا يهين أرضيدا كلية وأجانبتا ودالك وحكبرتا ودقناشا أما ريسيدنسيga looga qaado dollar ganaaxa iyo markay samaysanayaan marka waa la fuquuqaas hadii warbixintiisu ay ku soo gaartay iyo waxa idinka qorshaysan waxa kale oo jirta in ardayda iyo safaaraddu ay arrinta dadaal ka sameeyeen laakiin loo baahday in heer ilaa wasiir oo kor loo qaado si arrintaas xal looga gaaro marka wasiir arrintan ku soo gaartay dhibaatadeedu xalkiisana maxaa idinka qorshaysan mahadsanid Ruqiya walaal ku soco adigana ugu dambeeyo qaybta su'aalaha waan soo xireynaa inkastoo dad badan su'aalo soo weydiinayeen laakiin waan u sheegnay maadaama wasiirku waqti dheer uu nala qaatay oo qof safray yahay waan insha Allah follow up questions aan qaban doonaa Ruqiya ku soco walaal waa maasan tahay runtiina su'aalo badan aan qabay waa la wada weydiiyay hal wax baan rabay kaliya inaan wasiirka jeclaa inuu
noo faahfaahiyo hadduu jaanis u heli karo oo yacni si toosan ugu xirnayn wasaaradda arrimaha dibadda laakiin dhowr goor waxaa ka taabatay wasiir in arrinta democratizationka iyo soomaaliya xalkeeda inay qayb weyn ku leedahay wax walbaba asaaskiisa inuu yahay dadku inay leeyihiin awood dowladda gacanta inay kula soo wareegi karaan oo ummadda soomaaliyeed taas hiil u noqonaysa waxaan xasuustaa wasiir intaadan wasiir ka noqonin couple of years back inaad dadka waxay ahayd oo ugu cod dheer markay noqoto arrinta democratizationka oo runtii meel walba ka dhaysay soomaaliya way awoodaa inay doorasho gasho waxaan xasuustaa 2019 adoontaas dhehaysid inaana qaabka laga hadlo model of electionka laga hadlo maantana waa ujeedaa meeshuu waddanka maraayo iyo in la leeyahay September 17 agreement lagu noqonayaa iyo inay tii indirect electionskii aan vicious cyclekii haddana ku noqonayno maxay kula tahay taasi ay ku saameynayso soomaaliya fikirka laga qabo iyo soomaaliyada mustaqbalka wadamada kale adduunka maxay ka qabaan soomaaliya in badan oo goor carabka lagu yiraahdo soomaaliya waxay galaysaa some type of election waxaana ka gudbeynaa 4.5 systemka anagoo in badan oo dadka soomaaliyeed oo waddanka dhex jooga iyo dadka banaanka jooga niyad jab badan nagu dhacday arrintaas ku saabsan waa mahadsantahay wasiir mahadsanid walaal ruqiyo wasiir inkastoo su-aalaha 5 ahaayeen I hope inay magaranaysaa muwaadiniinta soomaalida waqti ku siiyeen aad magaranaysaa ay kusoo gaagaabiyeen ku soco wasiir 5 su-aalood ay magaranaysaa asxaabta ugu dambeeyay weydiiyeen insha Allah waana soo gabagabeyn doonaa mahadsanidin su-aashiisa markaan dhageystay waxaan isugu soo koobay inay tahay dhaqaalaha dadkan deeq bixiyaasha ah iyo safaaradahan ma ka maarmi karnaa jawaabta waxa weeye waa ka maarmi karnaa waxaan loo baahan yahay si aan uga maaranno soomaalida inay fahmaan inaan leenahay dal aad iyo aad qani u ah arrinkaas si fiican u dhagaysta dal aad qani u ah dadkiisana ay aad faqri u yihiin maalin dhexdaas waxaan tagnay dalkan Congo magaalada Kinshasa weligeena dad sidaas u badan ma arag magaaladaas magaalooyinka waaweyn oo ka tiro badan waan arkay dadkooda ka tiro badan yahay laakiin 12 milyan oo ku nool dalkaas waxaa moodaa jidka airportka ilaa magaalada intuu sahays in la isugu geeyo iyo dhibaatada ka muuqata qof nala socday baa wuxuu yiri dalkan sida uu qani u yahay iyo waxa uu leeyahay dadkan sida ay ka yihiin waa wax dhibaato ah waxaan ku yiri waxa la mid ah anaga Soomaaliya dad badan waxaa laga yaabaa wadamadan khaliijka oo kale inay u arkaan inay yihiin dalal qani ah haddaa fiiriso Sacuudiga Kuwait Imaaraat shidaalay leeyihiin Imaaraat waliba waxay leeyihiin shidaal waxaa leh Abu Dhabi kaliya Dubai waxay ku salaysan tahay service adeeg dekad ha noqoto tourism ha noqoto wax sii dhoofin ha noqoto waxyaalo noocaas intooda badan waxay leeyihiin shidaal kaliya Soomaaliya waxay leedahay shidaal aad u badan studieska aan aragnay qaarkood 2009 studieska aan arkay waxay ahayd Soomaaliya haddii la soo saaro shidaalkeeda inay adduunka number 7 geli lahayd dhowr sano kadib waxaan arkay study kale oo sheegaysa Soomaaliya haddii shidaalkeeda la soo saaro inay number 3 oo kala noqon lahayd shidaalka waxaa noo dheer waxa la yiraahdaa natural gas adduunka waxaa number 1 ka ah Ruushka number 2 waxaa Qatar saan filaayo Soomaaliya waxaan u malaynayaa labadoodaba inay
meel la mid ah haddayna ka badnayn ay gaarsiin lahayd. macaadinta soomaaliya ku jirta marka laga soo tago uranium iyo waxyaalaha aad maqlaysaan, waxaa jirta wax la yidhaahdo rare minerals, macaadinta macduunka ah. haddaan ka soo tagno waxa dhulka hoostiisa ku jira oo dhanba aad meel iska dhigto, waddamadaas kale waxaan dheernahay xebta ugu dheer qaaradda Afrika iyo bad runtii aad u khayraad badan, dhul beereed. waxaan leenahay xoolaha ugu badan marka loo fiiriyo populationka. waddan intaasoo maaragtay leh khayraada, dadkiisa inay gaajo ka qabaan waa waxa noo geystay inaan deeq naloo fidiye iyo safaarada iyo waxyaalahaas aan ku sugnaano. marka khayraadka maaha wax naga halaysan. waxa waaye soomaalida inay dib isu fiiriyaan, ogaadaan sidee ku sixi karaan kuna keensan karaan hoggaan dalkan hoggaamiya oo gaarsiiya maaragtay meesha potentialka ama riyada dadkooda ay qabaan. sidee ku heli karnaa? waxaan ku soo xiri doonaa su-aasha Ruqayya hadhow. waxa weeye waxa ugu muhiimsan dadku inay wax fahamsan yihiin, inaan maalgelin ku sameyno waxbarashada, in dadkeenu wax fahamsan yihiin. haddaan u noolaano keliya maanta iyo aniga oo aanan u noolaan ubadkeenna iyo kuwa ay sii dhalaan, kuwaasna weligood sidaasay ahaanayaan. laakiin annaga ma noqon karnaa generationkii ka fikiray kuwa ka dambeeya, ayaga maalgelin ma ku samayn karnaa? alxamdulillah maanta marka la fiiriyo human capital index, dadkeena gaar ahaan dibadaha jooga fursad u helay inay wax bartaan, fahamkeenna waa ka sarreeyaa sidaan ahaan jirnay. laakiin dagaalkii sokeeye wuxuu nagu yeeshay saameyn aad u weyn oo aatan siyaasadeenna xumaysay, oo qabiilka noo kala saartay, oo maaragtaa qof walbaba uu aniga maxaa iigu jira oo kale, hadduu ka roonaadan qabiilkayga maxaa ugu jira uu marayo. cabdixakiim, su-aashaada ma sahlana, laakiin markaan waxyaalahaas ka gudubno, markaan fahamno, markaan aragno hoggaan soomaaliyeed oo runtii focused ku ah inay maaragtay ka dhabeeyaan arrimahan, naftooda u huraan, handadaad kasta ha lagu sameeyo, wax walba ha lagu sameeyo, markaas waxay la tahay in aan gaari karno inaan ka maaranno waxyaalahaas. maxamed, su-aasha ku saabsan maxaabiista dibadaha, fikirkaas fikir laga tegay ma aha. waxaan mar dhaweyd safar official ah, booqasho rasmi ah ku tegay dalka Cumaan. halkaas waxaa ku xiran dhalinyaro Soomaaliyeed. arrinkooda wuxuu ka mid ahaa qodobada ugu muhiimsan oo aan ka hadlay, oo labada dowladood ka wada shaqaynayaan. marka taas waxaan ku oran lahaa mid laga tegay ma aha. farxa, arrinta ku saabsan, waa ku salaamayaa marka hore. marka labaad, arrinta ku saabsan visa restrictions, maaragtay hadda ka hor la tweet gareeyey ama la sheegay, runtii waxay ahayd sidaan u fahamnay wax la isleeyahay ha lagu dhiirigeliyo dadka diidan maaragtaa in heshiiskii maaragtay fulintiisii ay suuro geliyaan maaragtay arrimo noocaas oo kale ah la soo geliyey. laakiin
arrin sahlan maaha oo saas kuma suurtogalayso mar walbaba. Qaarkeen waxay haystaan dhalashooyin dalal kale ama dalka Maraykanka laftirkiisa oo u saamaxaysa inay si sahlan halkan shaqooyinkooda ugu yimaadaan, uga fushadaan. Waxaa taas ka muhiimsan, viisaha ka muhiimsan meesha aad tegayso oo shaqo ugu tegayso. Hadduu qofku yahay qof iska socda oo ama dalxiis u socda ama reerkiisa soo booqanaya, annaga taas dan guud ma aha, waxaan ka hadli karna ma aha. Laakiin hadday tahay mid ku socota in aan waxaan u soconnaa wax wada qabsanno, qaab kaloo waxaa jira dheer oo loo maro oo aad soo codsanayso oo dalka kale kuu soo jawaabayo oo viisahaagii iyo howlahaagii dhan laga shaqaynayo oo si markaas rasmi ah laguu soo dhaweynayo. Annaga waxaa noo furan marka jidad badan oo kuwaas sida marka hadday uga hadlay sida tweetka ugu cusub yahay arrimahan diblomaasiyadda, iyadan waxaa cusub in madax Soomaaliyeed oo iska soconaysa viisa aan runtii u baahnayn ay maaragtay tegi karaan dalalkaas, shaqooyinkaas kasoo qabsan karaan, la kulmi karaan communitieska Soomaaliyeed, guubaabin karaan, uga warrami karaan xaaladihii dalka. Taas marka maaragtay runtii saameyn weyn ku leh hadda madaxda ma aha. Waxaa dhib ahaan lahayd haddii visa restrictionska shacbiga dhan lagu soo rogayo. Taas markaas waa aaday maaragtay noo dhibi lahayd. Okombe, su-aasha ku saabsan ardayda Soomaaliyeed dalka Suudaan iyo fiigan laga qaadayo doolarka lagu soo rogayo waa arrin na soo gaartay, waa arrin aan maaragtay dood badan ka galnay golaha wasiirada, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda maaliyadda, sababtoo ah hadal aan haddaay furitaanka sheego ah principle of reciprocity ama mabda'a oranaya waxa aad adiga ugu samaysaa anigana kuugu samaynaa oo kuugu celinaya. saxan ku gud saan ku guday tiraahdaa Soomaalida ayay daba socotaa. Waxaa jira dadka Suudaan dhalashadooda ay tahay oo Soomaaliya jooga oo laga rabo viisaha, oo laga rabo deganaanshaha, oo laga rabo wixii shaqo u jooga ama kambanyaal ha u shaqeeyaan ama UN ha u shaqeeyaan ama qaab kale u shaqeeyanayaan. waxaa laga rabaa fees inay bixiyaan. Dowladda Suudaan marka way kasoo dacwootay dadkooda marka halka Soomaaliya jooga ma badna. Annaga wasaaradda maaliyadda waxay yidhaahdeen cid walba oo halkan timaado waxaa laga rabaa fee ay bixin lahaayeen. dhibku wuxuu ka yimaaday ardayda Soomaaliyeed oo badan oo joogta Suudaan. waa iska qancinay, waxaa la go'aansaday in laga daayo Suudaanta maaragtaa fiigaas laga qaadayo. taas markii aan samaynay Suudaan ayadana dib ka fiirsashay samaysay, waana maaragtay dib bay uga fiirsan arrintaas dib ay uga fiirsadeen. Ayagana haddii aysan already aysan ka daynin oo ka qaadin, waa arrin ay ku tala jiraan inay sameeyaan. taas marka bishaaran ku oran lahaa. Ruqiya, waa run arrinkan aniga hadda inkastoo aysan ahayn portfoliyadayda oo aan ka shaqeeyo wasaaradda arrimaha dibadda joogo, doorashada hadda aysan ahayn shaqada aan focusedka ku ahay, haddana runtii arrin waxa waaye aad ii dhibaysa in wax aniga aan professionally kasoo shaqaynayo muddo dheer in maaragtaa kana hadlayay anigoo musharax ah, anigoo maaragtay la shaqeeya hay-ado kale, anigoo la shaqeeya UN, anigoo
meelo badan kasoo shaqeeyay wixii aan ka shaqaynayay oo maanta aan face garanayno mabdi'iina aan aaminsanahay in muwaadinka Soomaaliyeed uu helo fursad uu ugu codeeyo cidda matalaysa cidda madaxa u noqonaysa aniga runtii waxay ila dhigantaa madax banaani annagoo ay shacabkana heleen oo kale nasiib daro arrinkaas hadda ma lay maqlaa wasiir si fiican ku maqalnaa ku soco wasiir marka nasiib daro muddo aad u dheer waa inoo suuragal weyse 2011 waa la oran karaa xaaladaha lagu jiray maba ahaynba suurtagal markaas waxaan ku faraxsanayn in doorashadii ugu horreysay oo xildhibaano iyo madaxweyne Soomaaliyeed lagu doorto ay Soomaaliya gudaheeda ku qabsoomaan oo xalano ku qabsoomaan waxay wax badan ka fiicnayd in madax Soomaaliyeed lagu doorto Djibouti ama Kenya ama waddan kale xoog ayaan saarnay in doorashada ku xigta ay noqoto mid dadku ay wada codeyn karaan waa ay noqon weyse arrintaas arrin runtii u baahan marka laga soo tago amniga iyo logisticada iyo waxa kaloo dhan just in mabda'aas ayaa muhiim ah in laisla qaato modelka doorashada ayaa muhiim ah doorashadaas markii ay dhammaatay madaxweyne Farmaajo la doortay aniga dowladdu ay la soo xiriirtay waxaana noqday la taliye madaxweyne si aan fikirkii aan waday haddii aan ka dhabayn karo haddii aan riixi karo haddii aan gacan ka geysan karo si aan uga shaqeeyo muddo gaaban gudaheeda 3 bilood annagoo la tashanayna khubaro ajnabi ah iyo khubaro Soomaaliyeed annagoo isu keennay hay-adihii dowladda wasaaradihii kala duwanaa guddigii madaxa bannaanaa doorashooyinka guddigii xuduudaha iyo cid allaale ciddii doorasho ay khuseyn kartay waxaan ka shaqaynay inaan soo saarno qaadan karto kaasoo ahaa waxa la yiraahdo proportional representation close to list with a single constituency oo macnaheedu yahay matalaad isu dheelitiran liiska xiran marka la yiraahdo waxaa laga wadaa in xisbiyo loo codeeyo constituency-ga dalka dhanna uu hal degaan doorasho yahay nasiib daro arrintaas siyaasadayn badanaa gashay aadan uga shaqaynay June 5 2018 waxaa suurta gashay in madaxdii dowlad goboleedyada ay nala qaataan waa la saxiixay heshiiskaas saxiixay waxaa dhacday 2 bilood kadib in dowlad goboleedyadii ay yiraahdaan heshiiskan ma naqaano ma la arag iyadoo saxiixoodii ku yaalo hadda waxay iska noqotay dhaqan Soomaaliyeed oo ayahan soo baxay mana raba arrintaas hadda ka hadlo laakiin maalmaha ka mid ah oo dhow insha Allah noo suurtageli doontaa arrintaas aniga shakhsiyan way iga go'an tahay wixii aan gacan ka geysan karo kaalinta aan ka qaadan karo in dadka Soomaaliyeed ay u codeyn karaan dadka matali lahaa iyo madaxa ayaga ku qanacsan yihiin inay u suurta gasho marka la idin salaamaya dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu thank you wasiir aad ayaa u mahadsan tahay 2 saac iyo cadadka aad nala qaadatay ummadda Soomaaliyeed meel bay joogaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo kaalinta ay ku leeyihiin arrimaha qaxootiga arrimaha dibadda waxaan ma garanaysaa maanta sidan sharafta leh ummadda Soomaaliyeed ugu warantay
aad iyo aad ayaa kaaga mahadcelinaynaa haddaan nahay madasha dowlad ku nool walaalkan samater jibriil cabsakteera iyo dhammaan dhalinyartii meeshan magaranaysaa madasha dowlad ku nool nala soo qabanqaabiyeen aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay iyo dadbiilo iyo rajo ayaa ummadda soomaaliyeed gelisay magaranaysaa khudbadan aadka u dheer I hope inaan anaga haysan lahayn system aan waxaan ku record garayno so si generationska iyo ummadda soomaaliyeed hadda dhallaanka soo korayaan ay u dhageystaan waxaan qiimaha badan ee caawa meeshan ka jeedisay laakiin insha allah we will have a system inaan waxaan record garayno oo aan youtube-yada iyo library-yaasha ummadda soomaaliyeed aa geyno adiga iyo madaxda kaloo noo imaadaba aad iyo aad ayaa u mahadsantahay wasiir insha allah jibriil iyo samater ayaan siin doonaa haddii ay wax ku darayaan waana kaaga mahadcelinaynaa sida magaranaysaa maanta aad noo ajiibtay warbixinta noo siisay waa mahadsantahay suud professor jibriil c kadib noo soo gabagabay professor jibriil ku soco walaal insha allah last comment si ummadda soomaaliyeed aan dhegeysanayso meel walba joogaan kadibna insha allah wasiirkeena waan fasaxeynaa intuu howlihiisa hor usii wato jibriil mana maqashaa samater ku soco I think aqoon-yahan jibriil is busy ku soco samater noona soo xir aad iyo aad ayayna u mahadsan yihiin boqolaalka qof ee soomaaliyeed ee kumanaanka ku dhow ee caawa dhan nala joogay u heelanaa iyadoo 10kii dambe ramadaanka lagu jiro inay dhageystaan wasiirkooda wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya dhan uu matalaa waana midda maanta keentay su-aal walbo left iyo right looga keenay inuu si sharaf looga jawaabo aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa samater insha allah wasiir jibriil waa busy aan u malayaa aad iyo aad u mahadsantahay suud waxaan ka cududaarinaynaa dhinaca technicalka oo wasiirka haysatay technical problem yarka oo jiray saa la socotiin ba wasiirku waa safar shakhsiyana inta badan anaaba caawinaan isla joognay dhammaantiin waxaan idinka mahadcelinaynaa sidii sharafta iyo qiimaha iyo quruxda lahayd aad uga soo qayb gasheen sidii aad samater mana maqashaa hallo samater I think samater mana maqashaa haa sidaa uga soo qayb gasheen dhammaantiin waan idinka mahadcelinayaa bartan dowladda ku nool aad ku taxan tihiin waxaan ka cududaarinaynaa dadka su-aalahooda helay iyo kuwii aan helinin iyadoo mataqaanaa bir rabadaana lagu jiro xaaladuna iska adag yihiin waxaan ku celinayaa suud noo soo gabagabay suud aad iyo aad aa mahadsantaa walaalkii mahadsanid samater jibriil cabsakteera nimcaan hilaac bahda dowlad ku nool oo dhan caawa wixii joogay iyo waxaan jooginba wasiir maxamed cabdirasaaq wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya xiriirka caalamigaana la joogay aad iyo aad ayuuna u mahadsan yahay asaga ummadda soomaaliyeed gabdho iyo wiilal caalamku meel walbay ka joogaan